waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayda fasalka afraad aad baan u salaamayaa. Ramadaan kariim. Waa macalinkeena xasan siyaad cilmi oo idin leh waqtiga waxaynoo wacnaado. Maanta insha Allah waxaanu qaadan doonaa lesson-keena koowaad, cashirkeena koowaad baanu qaadan doonaa. Unit-ka waxaanu ka bilaabi doonaa lixaad ama cutubka lixaad, page-ka 24 baynu ka bilaabi doonaa. Waad ila socon doontaa insha Allah haddii la yidhaahdo. Cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay My mom tells me funny story. Once upon a time, a lion lived in a forest. One day, it had a heavy meal and slept under a tree. After a while, a mouse came and it started to play on the lion. Suddenly, the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing, trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net, then it escaped. After that, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest. haddayna dib ugu soo noqon ardayay, cashirkan wuxuu ka hadlayaa my mom hooyaday tells me waxay ii sheegtaa funny history, sheeko qosol ayay ii sheegtaa ama iga sheekaysaa. Once upon a time, beryaha ka mid ah ama maalmaha ka mid ah, a lion libaax lived wuxuu ku noolaa in a forest, kayn buu ku noolaa. One day maalin, it had a heavy meal, hilib badan buu cunay and slept, wuxuuna seexday under a tree, geed hoostii. After a while, in yar kadib, a mouse jirba came u yimiday and it started, wuxuuna bilaabay to play on the lion, inuu libaaxa ku dul ciyaaro. Suddenly, si lama filaana, the lion libaaxii get up uu kacay with anger, isagoo cadhaysan, and looked, wuxuuna eegay for those who disturbed cidda ka xumaysay it is nice sleep, hurdadiisii fiicnayd. Then dabadeedna it saw, wuxuu arkay small mouse jiryar standing, dul taagan, trembling oo gariiraya with a fear, cabsi la gariiraya. Haddaba the lion libaaxii jumped on it, wuu ku dulbooday and started, wuxuu bilaabay to kill it, inuu dilo. The mouse jirkii requested, wuxuu ka codsaday the lion libaaxii to forgive it, inuu iska cafiyo ama iska daayo ayuu jirkii ka codsaday libaaxii. The lion libaaxii felt pity, uu naxdin buu dareemay and left it, uuna iska tegay. The mouse jirkii ran away, wuu cararay ama wuu orday. Intaa haddaan ku soo celiyo oo macnaheeda aan soo dulmaro. Once upon a time, beryaha ka mid ah, a lion libaax baa lived wuxuu ku noolaa in a forest, kayn buu ku noolaa. One day maalin, it had a heavy meal, wuxuu cunay hilib badan buu cunay and slept, wuxuuna seexday under a tree, geed hoostii. After a while, in yar kadib, a mouse jirbaa came u yimiday and it started, wuxuuna bilaabay to play on the lion, inuu libaaxa ku dul ciyaaro. Suddenly, si lama filaana, the lion libaaxii got up uu kacay with anger, isagoo cadhaysan buu kacay, and looked, wuuna eegay for those who disturbed cidda ka xumaysay its night sleep, hurdadiisii macaaneyd ama hurdadiisii fiicnayd. Then dabadeedna it saw, wuxuu arkay a small mouse jiryar standing oo ku dul taagan, trembling oo gariiraya with a fear, cabsi la gariiraya. The lion libaaxii jumped on it, wuu ku booday and started, wuxuuna bilaabay to kill it, inuu dilo. The mouse jirkii requested, wuxuu ka codsaday the lion libaaxii to forgive it, inuu iska saamaxo. The lion libaaxii felt pity, wuu ka naxay ama naxdin buu dareemay and left it, wuuna iska tegay. The mouse jirkii ran away, wuu cararay. On another day, maalin kale, the lion libaaxii was caught, ayaa la qabtay in a net, shabag baa lagu qabtay by a hunter, welibana ayaa qabtay ugaarsade ama qofka hadii jeer ugaarsade kaynta ka ugaarsada ayaa la dhahaa hunter.
The mouse jiirkii came wuu yimiday there halkaasuu ugu yimiday and cut wuxuuna ka jaray the net shabagii then dabadeedna it escaped oo baxsaday after that intaa kadib the mouse jiirkii and the lion libaaxii became waxay noqdeen friends saaxiib they lived waxay u noolaayeen happily si farxad leh in the forest kayntii markaa way saaxiibeen. Answer baa lagu yiri this question ka jawaab su'aalahan where does the lion live halkee buu libaaxu ku noolaa where does the lion sleep halkee buu libaaxu seexday who disturbed its nice sleep yaa ka xumeeyay hurdadiisii fiicneyd what is the mouse requested the lion maxaa uu jiirku ka codsaday libaaxa when did the lion goormuu libaaxu and the mouse iyo jiirku became ay noqdeen friend saaxiib xillim ay noqdeen insha allah casharkaa waad iisoo gudbin doontaa markaad hesho ayaad iisoo gudbin doontaa exerciseka waad kasoo shaqayn doontaa markaad casharkaa fahanto welibana videoga marka aad daawato waad ku ceeshan doontaa si aad u fahantaa casharka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.